gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa maanta dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga fulinayo xarunta degmada Shibis waxaana munaasabada dhagax dhiga goobjo ka ahaa maareeyaha wakaalada dhismaha Soomaaliyeed mashruucan uu daafuray duqa magaalada Muqdisho ayaa isugu jira mid lagu dhisayo qaybaha kala duwan ee xarunta maamulka degmada Shibis iyo sidoo kale mid lagu xoojinayo barnaamijka lagu taageerayo awoodsiinta dumarka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish oo dhagax dhiga kadib la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay farxad gaar ah ayay tahay inaan maantay idin kala soo qayb galo munaasabadan dhagax dhiga ah oo ah markii ugu horeysay taniya markii aan xilka qabtay aan dhagax dhigo meel dan guud ah oo kamid ah yaani howlaha sida gaarka ay khuseeyo waxaa sidoo kale farxad iyo fursad ba u ah reer Shibis inay noqdaan degmadii ugu horeysay ee la dhagax dhigo yaani taniya markii aniga xilka aan qabtay runtii mashruucan aad arkaysiin oo maanta halkan aan ku dhagax dhignay أنا رجينا مدير كذب أنا يعني حركة كجري دونه وعايز كاشدي معمول كقبل كبنادر أيو دقمة الشبس بلشدي ده أو إسكاشدي أي كسورة كشيء يعني مشروع هالكان لقد قاعد يجي مانتا وهالكان لنعيق مدكتا تاجن وقدوميها لنعاس مدكتا وجحيجة ماريها وكالة اسمها الصوماليات وأنفلا إن دتك ماشي تاجن دمار إيه قانان مركا جنرال بشير أيسقونا وهو وقصوا بيريا قيبتي سايونا كقاعدن دونا أسيق وكالة ديسة جنرالكم مركا mar haddii intaanaan dhisno ama inta hawshu ay socotaba wuxuu qaatay mas'uuliyadda ah in halkaan oo dhan mutalaal oo nooga dhigo marka mutalaalka casriga ah ee xilligan interlog la dhaho ayuu noo ballan qaaday asagana aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay mashruucan marka wuxuu ka koobnaan doonaa hool weyn oo bulshadu ay lagu shiriyo talooyinkooda isku weydaarsadaan أي أفر قل أو قيب كأيقونا يعني حفيز ده بلشدة إسماعيل أحمد عبدي مقبيها بدعس 24 TV